saddexda shay waad ku halaagsamaysaa haddii aad dhaqan iyo caado ka dhigato noloshaadana waxaa ku sugnaanaysaa khatar la yaab leh. nebigu isagoo inooga digaya ayaa xadiis waxa uu ku sheegay 3 shay oo lagu halaagsamayo oo mudan qofka naftiisa laxajecla ka qaba inuu ka digtoonaado. qodobka koowaad fashuxun mutaac, qofku inuu bakhaylnimada u hoggaansamo oo uu bakhayl noqdo, isagoo xitaa laga yaabo inuu hanti haysto uu noqdo midaan xitaa kala garanayn waxa xaqa loogu leeyahay iyo waxaan xaq loogu lahayn. shaxiixnimadu xitaa waa kelmad ka sii xeel dheer bakhaylnimada, sababtoo ah shaxiixu waa qofka wixiisana la laxajeclooda oo aan bixin waxa bini'aadankana damca. taa cagsigeeda rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum almuflixuun, qofka laga dhowro oo laga badbaadiyo bakhaylnimada naftiisa oo dabar kaa gooya kuwaas ayaa liibaanay. dhaqanka labaad fahawaa mutabac, qofku inuu hawadiisa raaco. qofka bini'aadanka ah shahwo ayaa ku abuuran, caqlina ilaahay waa siiyey, xuduudna waa u dejiyey rabbi subxaanahu wa tacaala ugu talagalay qofkaasi inaanu ka gudbin seerahaas. haddii qofku marka uu hawadiisa raaco caqligiisa adeegsan waayo oo waxa naftiisa ama shahwadiisa ugu sheegto ugu hoggaansamo, qofka isaga ahi waa qof halaagsamay. qofka bini'aadankaana 2 shay baa lumiya. 2daas shay waxay kala yihiin qofku inuu shubho uu diinta kaga baxo ama inuu shahwo ku leexdo. saa darteed in qofku uu sinaysto ama uu mukhadaraad isticmaalo amase xoolaha dadka uu dhaco oo waxa weeye arrimahaasoo dhan waa arrimaha hawadiisu ama naftiisu ay mala awaalato oo jeclaysatay, kadibna aanu ka qaban oo horey ugu socday aakhirkana uu ku halaagsamay. qodobka ugu dambeeya waxa weeye wacjaabu lmar'i binafsihi, qofku inuu naftiisa la cajabo oo ka helo isu bogo. waxaa jira xanuuno kala duwan. xanuunada jismiga waa kuwa la daweeyo, laakiin xanuunada khatarta ah ee qalbiga ku dhaca waa kuwa ugu khatarta badan ee mudan qofku inuu iska daaweeyo. xanuunadaas waxaa ka mid ah qofku inuu naftiisa la cajabo oo uu sumcadoon noqdo oo uu waaga dambena kibir uga gudbo, dadkana uu xaqiro oo uu iliidata ku eego. haddaba heer kastood nolosha ka joogtid, haddii aad adduunyada ku horumartay oo ilaahay adduun badan ku siiyey, waa inaad ogaataa in ilaahay nimcada tan ku siiyo shukri ay mudan tahay. haddii aad cibaadada ku fiican tahayna waa inaad ogaataa in waxa weeye noloshan inta aad nooshahay aadan aamin ku sugnaane aad ogaatid in mar walba aad xagga rabbi u dhowaatid ilaa inta lagaa oofsanayo. rabbi subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in aanu ina halaagin, dhaqamadana inaga badbaadiyo, adduun iyo aakhirana ina liibaano. muuqaalka sii faafi si walaalo fara badan ay khatartan uga digtoonaadaan.